kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo aad noga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan waxaa kamid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish oo ku soo rogay amaro culus gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo uu soo kormeeray qaar kamida wadooyinka ku yaalo magaalada Muqdisho faahfaahinna ka soo baxayo ganacsada caan ka ahaa Soomaaliya oo xalayto lagu dilay magaalada Muqdisho iyo ciidamada amniga oo bilaabay howlgallo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyay dilkaasi madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo markii ugu horeysay ka hadlay shaqaaqadii ka dhacday magaalada Boosaaso isla markaasina beeniyay in maamulka Puntland ay wax ku ogaayeen diyaaradii ay la socotay Sacdiyo Yaasiin Samatar eedeyna u jeediyay gudoomiye ku-xigeenka koobaad qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownaa daawadayaal Allah u naxariistee waxa xalayto magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafada Jungol ee degmada Yaaqshiid lagu dilay ganacsada caan ka ah magaalada oo lagu magacaabo Sheekh Salaad Ciise sida channelkeena ay u sheegeen dadka deegaanka waxa dilay nabadoonka oo kamid ahaa ganacsatada waaweyn ee dalka kooxo ku hubaysnaa bustoolado oo ilaa iyo hadda aan haybtooda la aqoonsanin wararka ayaa intaasi ku sii daraya in ciidanka booliiska ay gaareen goobta uu dilku ka dhacay iyagoo halkaasina ka bilaabay howlgallo lagu baadigoobayo kooxihii dilkaasi fulisay ma jirto ilaa iyo hadda wax wara oo ka soo baxay laamaha ammaanka oo la xiriiro dilkaasi mana jiro ilaa iyo hadda cid sheegatay mas'uuliyadda dilka ganacsadahaasi dilkiisa ayaa ku soo aadaya xilli uu sii xumaanayo amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isla markaasina ay ku soo bateen dilka iyo dhaca loo geysanayo dadka shacabka ah si kastaba dilalka noocan oo kale ee loo yaqaano ku dhufo oo ka dhaqaaq ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka fuliya xubno ka tirsan Al-Shabaab kuwaasi oo ay ku beegsadaan mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda iyo dadka maangalka ah dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa booqday qaar kamida wadooyinka caasimadda oo uu biyaha dhigay roobabkii da'ayay 24 saacadood ee ugu dambeeyay duqa magaalada Muqdisho ayaa goobihii uu booqday waxa ka socotay shaqo ballaaran oo ay howlwadeennada dawladda hoose ee Xamar biyaha uga saarayeen wadooyinka Muqdisho si shacabka loogu fududeeyo isku socodka gaadiidka iyo bulshada goobaha uu kormeeray gudoomiyaha waxa kamid ahaa wadada hormarta dugsiga tababarka ciidanka booliiska ee School Police wadada 21 Oktoobar wadada kilomitir 4 ee degmada Waabari iyo wadada Buula Xubey ee degmada Wadajir gudoomiye Cumar Filish ayaa maamulada degmooyinka gobolka Banaadir waxa uu faray in olole xoogan oo nadaafada iyo bilicda lagu soo celinayo laga qabto wadooyinka caasimadda waxaana uu sidoo kale ugu baaqay bulshada in ay garab istaagaan howlwadeennada dawladda hoose ee Xamar madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo shalayto dib ugu laabtay caasimadda Puntland ee Garowe ayaa ka hadlay markii ugu horeysay dagaalkii dhawaan ka dhacay garoonka diyaaradaha Boosaaso iyo waliba celintii diyaaradii siday gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka madaxweyne Saciid Dani ayaa sheegay in dawladda Puntland aysan waxba kala soconin diyaaradaasi si la mid ah tii ka degtay Garowe oo uu sheegay in mar dambe lagu wargeliyay balse dawladda ay isku ogolaatay Dani ayaa sheegay in Puntland aysan u baahnayn gargaar ka kooban qiimo ahaan 3 ilaa iyo 4 kun oo dollar laguna wado diyaarad lagu soo kireeyay 20 kun oo dollar ayna hore uga wada hadleen arrintaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya Saciid Dani ayaa u muuqday mid ku dhaliilayo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka
tallaabada ay qaaday ee gargaar kooban ay ku gaarsiinaysay magaalooyinka Puntland waxaana uu sheegay inaysan aqbali doonin in gargaar noocaasi ah la keeno Puntland iyadoo diyaaradana lagu soo kiraynayo lacag tira badan oo ilaa 20,000 oo dollar ah balse gargaarka la sido ee diyaaraddaasi saaranna qiimo ahaan ay gaarayaan 4,000 ilaa 3,000 oo dollar. waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto meediya hawaayadan waxaan ku arkay Puntland gargaar arrintaa inaan saxaan rabaa runtii arrintaana waa kala hadalno waxaan nidhi haddii qof kastoo xildhibaan ama kuristi wasan uu xaafadiisa qaar raashin u geysto dee roolkii dowladnimada iyo dadkii masaakiinta ahaa wixii gaari lahaa meesha ka baxay arrintaas marka wasaaradaha u xilsaaran dowladdana sideedaba hay-adaha fulinta u xilsaaran in ay dadka wax gaarsiiso iyadoo kaashanaysa bulshadeeda iyo wixii suuragal ah diyaaraddii timid Garowe waqti aad u dambeeya ayaa lagu soo wargeliyay dowladda oo si waliba aanan rasmi ahayn laakiin waxaan markii la codsaday in la dejiyo oo dowladdu loo wareegto wasiirku hadda waa ay maqlayaaye xataa markuu dejiyey waxaa ka daba yimid dad dhahaya annaga si gaar nagu socoto waxaan rabnaa in annagu qaybno saas maa wasiir waxaan ku yidhi arrintaas haddee dowladnimada wax u dhimaysaaye wixii lagu keenay dadku say ugu kala baahi badan yihiin u gee middan hadda timid Boosaaso dabcan anu waan maqnaa laakiin markay waxa dhaceen madaxweyne ku-xigeenkan soo wacay wasiiradii aan soo wacay dadka oo dhan wax bin aadan oo ka warqabi ma leh oo dowladda ah horena dowladda Puntland waxay u codsatay diyaaradaha noocaas inay dambe ku jirin tani waxay sii dheeraysiisay in khilaaf habkii maamulka ah ay ku keento oo dhibaato iyadana la timid runtii wixii halkaa ka dhacay waa ka tacsiinaya waana ka xumahay waxaan ilaahay uga baryayaa intii ku dhimatay inuu naxariista janno siiyo intii ku dhaawacmato u booga dhagayo khaladka dhacayna uu mar dambe dib u dhicin waxa sababay oo arrintaa dhacayna in aysan mar dambe soo noqon oo waxa qofku uu wax ku yahay oo mas-uuliyad ama raashin loo dhiibo ama awood loo dhiibo ay tahay waa dowladnimo dadku halkaasuu iska maraa ilaa xilliguu dhiibo maalinta xilliguu dhiibo haddii adiga tidhaahda dowladnimadii aada xilka ku timid ma ilaalinayo ogow adiga unbaa gacantaada isku dilaa waana khatar marka waxaan u baahanaa inaan dowladnimadeena ilaalino kala dambeynta iyo dowladnimada ayaa danteena ku jirta dadkan aan aragnay filmadooda sida kaliya aan wax ugu qaban karno waa inaan dowladnimo ku gaarno haddaan caalamka wax ka codsanayno haddaan annagu wax haysanno haddaan bulshadeenna wax ka ururinayno waxaan u baahanaa authority na lagu aamino no lagu dhiibo haddaynan taa lahayn dee shakhsiyaadka halkaa taagan oo badan oo ka wada danqanaya oo waxba qaban karin baa la mid noqonayna marka dowladnimada aan samaysanay ilaalin bay nooga baahan tahay iyo inaan maaragtay danaha aan dowladnimada macnaheedu waxa weeye inaan danaheena ku qabsano marka ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa taas hadda inaan ku dheeraado ma rabo laakiin waan baraarujin bay iga tahay waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa culummada oo mar walba u taagan arrimaha khatarta ah markay soo baxaan siday kaalintooda u qaadan lahaayeen oo haddana aan rajaynayo inay maaragtay guddiga halka jooga ay ka mid yihiin oo ay qaybtooda qaadan doonaan waxaan kaloo rabaa inaan halka baaq uga diro bulshada ku dhaqan dibadda ee Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Puntland waxyaabaha si gaar ah qof walba reerkiisa u taraay marka laga tago waxaan u baahanahay inay ka qayb qaataan oo aan rabaa inaan caawa halka uga dhawaaqo sanduuqa abaaraha lagula tacaalayo oo aan rabo inuu noqdo sanduuq dowladda iyo bulshada u dhaxeeya dabcan guddiga iyo habka loo maamuli doono dib baa laga soo sheegi doonaa guddiga hadda dowladdu ay magacaawda keliya kuma koobnaan doono guddiga culummada iyo ganacsatada iyo bulshada rayidka ayaa ka wada qaybgeli doonto sanduuqaas dowlad ahaan iyadoo waxa hadda aan qabanay ayaan sheegnay ayaa wax soo socda si loo qabto sanduuqaas dowladdu waxay ku shubaysaa oo ku bilaabaysaa lacag 1 milyan inay dowlad ahaan ay ku shubto budgetka dowladda lagu shubo waxaan rabaa cid walba oo Soomaaliyeed inay sanduuqaas wax ku soo kordhiso sanduuqaas wuxuu noqon doonaa sanduuq shafaafa dowladdan aan mas'uulka ka ahay waxa looga bartay maaliyad hufan waxaad ogtihiin maalin dhexdaas canshuurta aan kordhinay waxaan ku soo kordhinay in lagu sameeyo infrastructure indhiina macalinka sideedii baa loo fuliyay waxaan qabaa inaan kalsooni qaadaan shilin abaar ku lagu shubay wallaan dowladda wax kale loogu qabanay waa ogaanaysaan guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doono muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad
geliyo